magacyada uu maalinkaasi leeyahay waxa ka mid ah ad-daarul aakhirah oo isaguna quraanka ku soo noqnoqday ad-daarul aakhirah daarta dambe deegaanka dambe oo qofna deegaan khayr loo noqonayo qofna deegaan shar sagaal jeer baa Ilaahay ku soo celceliyay subhanahu wa ta'ala waxa jira magacyo kale oo badan oo 6 jeer 4 jeer 2 jeer hal mar Ilaahay ku soo celceliyay quraanka magacyaasha qiyaamaha ka mid ah waxa ka mid ah yawmul ba'th maalinka Ilaahay uu khalqiga soo saari doono qofba wuxuu calfadaba iyaga oo wax sahaya aan sida maalkoodi iyo madaxtinimadoodi iyo tolkoodi intaba iyagoo ka yimid oo nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inay qaawan yihiin oo aanay waxba xidhnayn waa markay caashiyaabtay lahayd oo miyaanay rag iyo dumarku is eegay rag iyo dumarkii adduunyada is eegi jireen miyaanay is eegay nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam arrinku intaa uu ka adagay in la is eego ama la isu hamoodo arrintu way ka adag tahay waa maalinka uu nabigu tilmaamaya cidda u horraysa dhar la huwinaya inuu nebi ibraahim yahay calayhi salaam qofba wuxuu halkan kala tegay ayuu huwan doonaa walibaasu taqwa daalika khayr dharka alla ka cabsigaana fiican baa Ilaahay subxaanahu yawmul khuruuj waa maalinka la soo baxay dadku hadday xabaala ku libdheen haddii bahal cunay hadday gubteen haddana Ilaahay inta soo ururiyaa uu keeni doonaa alqaarica waa maalinka dhakada dadka ka garaaci doona yawmul fasl maalinku Ilaahay khalqiga kala saarayo wax badan bay isku murugsanaayeen isdulmiyeen isdhacayeen oo ay isdhex wareegayeen Ilaahay maxkamadiisu keenaya miisaankiisu keenaya malaa'igtiisa gaar ka haysa isaga xaakima dulmi ma jiro yawmul fasl bala yawmud diin wa maalinka abaalmarinta as-saakha ad-daama yawmul hasra wa maalinka murugada qofkii xumaa wuxuu ka murugaysay amalkii xumaaya uu sameeyay isagoo codsanaya in la celin lahaa qofka wanaagga sameeyay yareeyay wuxuu ka murugaysan yahay inaanu waqtigiisii wanaag ku qaadanin xataa ka wanaag la kulmay wuxuu isleeyahay maad soo badsatay yawmul hasr alghaashiya wa maalinkii wax daboolay yawmul khuluud wa maalin la waarayo oo qofku halka uu calfado janno iyo naar ayuunbu ku waaraya khuluudun bilaa mawt qolo walba halkeeda markuu geliyaa buu Ilaahay leeyahay waa maalinkii waaritaanka alwaaqica yawmul xisaab waa maalinka Ilaahay addoomaha uu xisaab u soo joojin doono ka duwantii adduunyada waxbaa la laablaabi karaya waxbaa laga ergeyn karayay maya xisaabtana xisaabii hore way ka duwantay yawmul maw'uud yawmul wa'iid yawmul aasif yawmul jam'a waa maalinka Ilaahay khalqiga oo dhan uu soo ururin doono kii hore iyo kii dambe jinkii iyo insigii awal iyo aakhir aadam iyo intii ka dambaysay buu isu wada keenaya ummadaani saragba kala waqti kala meel ahaa buu Ilaahay halkaa isugu keenaya meeshu qaad weyna muuqaalku waa ka duwan yahay kan yawmul jam'i baa alxaaqa baa Ilaahay u bixiyo waa tii dhab tahay yawmu tanaad waa maalinka la isu baaqayo ee qof walba looga yeedhayo khalqiga dushooda ama khalqiga oo taagan baa loo yeedhaya baaq baa dhacaya aanu qofku weydaaran karayn baaqii rususha iyo baaqii Ilaahayba hadduu addoonku adduunyada diiday maalintaa ma diidi karayo يوم التناد بالله ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد كأنهم إلى خشب يوفضون واحد مودائن أي أدقاقيان يورديان كأنهم إلى نصب يوفضون وحلو تاقي إن يورديان بات مودا وآنا ويدارن كرين يوم التلاق بالله هذا مالك كلنك لينذر يوم التلاق عدوى لبوي كل ميس نفتي iyo jirkii baa kulmaya waxa kulmaya daalinkii iyo madluumkii waxa kulmaya kuwii hore iyo kuwii dambe waxa kulmaya Ilaahay addoomaha subhanahu wa ta'ala isku abaal mariyo yawmu taghabun wa min asmaa'il qiyama yawmu taghabun wa maalinka la isku kadinayo qofna wuxuu qaadanayaa labadii meelood ee jannada qofna wuxuu qaadanayaa labadii meelood ee naarta ayuu qaadanaya intaasoo magacyaale waxay tilmaamayaan maalinkaas ajaa'ibka uu leeyahay ayay tilmaamayaan waxa markaa khudbadeena asal u ahaa aayada quraanka ah ee qiyaamaha ka waramaysa ee ku soo degtay fi aakhir hayat rasuul sallallahu alayhi wasallam nabigu markuu sii dhimanayay ayay ku soo degtay bal culimadu waxay u badan yihiin muhaqqiqiintooda fi culum alquran ka warama inay tahay aakhir aayati nazalat aayadii ugu dambaysay ee soo degtay nabiguna alayhi salaatu wassalaam sagaal habeen buu sii noolaa markii aayadaasi soo degtay aayadaas waxay ka waramaysaa qiyaamaha
iyadoo dhowr arrimood isugu jirta wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun wattaquu yawman maalin ka cabsada buu ilahay leeyahy maalin ka cabsada ilaahay baa laga cabsanayaa arrima maalinkaa waxa uu dhex dhigay ee mushkilada daraaddii ayaa ilaahay laga cabsanayaa marka maalinkii waa inuu qalbigaaga ku jiraayo oonad iloobin wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah ilaahay baa la hortegayaa maalinta wuxuu ayaamaha kale ka duwan yahay ilaahay baa addoommuhu ay ishortaagayaan iyagoo wax turjumaani aanu jirin turjumaankaaga turjumayaa ma jiree luqadda adiga iyo ilaahay aa ku wada hadlaysaan waa isafgaranaysa si toosaa ilaahay addoonka ula hadlaya subxaana wa tacaala qofuu asturo iyo qofuu fadeexadeeyo labadaba qaybta dambe waxay sheegaysaa maalintaa in ay kulmayaan alkhusuumu kulluhum dadkii murmayay oo dhan dadkii wax dhex mareen uma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wixii ay naf waliba shaqaysay baa lagu abaalmarinaya wahum laa yudlamuun cadaaladina maalintaa way buuxdaa cadaaladdarra ma jirto cadaalad baa maalintaa dhulka ilaahay uu ku iftiiminaya subxaana wa tacaala maalinkaa isaga ah macnola'aan ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka kariimka ah uguma sheegayo laakiin waxa badan ilowga dadku ay ilowsan yihiin iyo u diyaargarow la'aanta ayaa aad u badan waa yawmun rahiib maalinkaas wixii lagu faani jiray addoommuhu ay ku faani jireen saa horeba aynu soo xusnay way soo weydaarteen jahannamaa halkan la soo dhigaya naartaa ilaahay qur-aanka uu aad uga warrama ayaa soo dhowaanaysa iyada oo guux iyo codad kala duwan zafiir iyo shahiiq bay leedahay zafiir iyo shahiiq waxa qarxa ee aad u qarxa codadka uu leeyahay iyo gariirka ayaa aad u badan siduu nebiguna tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay 7,000 oo xadhig walba ay hayaan 7,000 oo malag waxay u cadhaysan tahay basharka meesha taagan waxay ka kooban tahay cadhadii ilaahay subxaana wa tacaala oo biirtay oo ilaahay uu cadowga ku abaalmarinayo ilaahayna lifasli alqadaa si uu addoommaha u kala saaraa buu u taagan yahay u imanayaa wajaa'a rabbuk waalmalaku saffan saffaa ilaahayna maxkamadduu taagan yuu joogaa subxaana wa tacaala malaa'igtiisiina waa safsaf bay u taagan yihin iyagoo bani aadamka ilaalinaya oo gaadha maalinkaa isaga ah siyaabo kala duwan bay nusuusta uga warramaysaa innaga oo qur'aanka uun u badan oo dee axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad ay uga warrantay qur'aanku wuxuu xusayaa maalinkaasi inuu dherarkiisu leegyahay 50,000 sana 70,000 oo sano ayaa uu dherarkiisu leegyahay markuu wakhtigu ku dheeraado dadkii meesha isugu yimi kolba waxay u cararayaan ambiyada mid xaggiisay u cararayaan nebi aadam intii ka dambaysay ilaa nebi maxamed ay soo gaadhaan calayhi salaatu wasalaam dherarkii iyo kulaylkii baa ku adkaaday qorraxdii baa la soo dhoweeyo qadra almiil qadarkii baa la soo jirsiiyey waxa runtii halkaa intaasoo nusuusay a u tilmaamaysaa maalinkaa isaga ah ilaahayna subxaana wa tacaala wuu u baraarujinayaa aad ugu celcelinayaa nusuusta bal inaanay dadku ilaawin waxaynu ogsoonnahay qofka aan iimaan lahayn aakhira qadka uguma jirto aakhiro shay la yidhaahdo ma rumaysna dadka muslimiinta ah baa u diyaara arkaanul iimaankana ugu jiraayo aaminsan u diyaargaroobaya qofku uu leeyahay tolo maalintaad ilaahaysa soo hortaagta maxaa ka soo bixi doona wixii lagaa qoray ee malaa'igtu ay ka qoreen iyadoo wejiyadu maalintaa laba midun ay noqonayaan weji faraxsan oo iftiimaya iyo weji murugaysan wujuuhu yowma'idin musfira daaxikatun mustabshira waa farxadda qalbiga iyo farxadda wejigaa iswaafaqaya markaa qofka wejigiisi uu iftiimaya dadka qaarkoodna ilaahay wuxuu uhi wawujuuhu yowma'idin calayha gabara tarhaquhaa qatara waxaa daboolaya dulli iyo boodh ayaa daboolaya wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun aayadihii ugu horreeyey ama suuradihii ugu horreeyey saddexdii suuradood ee ugu horreeyey laba ka mida baa ilaahay uu ku xusayaa qiyaamaha muzammil iyo muddathir aayaddii u dambaysayna waa adiga arkaya waana yar tahay safxad ama bog aayadaha suuradaha qur'aanka ka mida oo aanad ka helaynin qur'aanka kariimka ah inuu ilaahay kaga warramayo qiyaamaha si qalbigeennu u qoyo qombobka iyo qalalka ku dhacay uu uga yaraado waxa laga maarmaana walaalayaal inuu qof waliba ku xisaabtamo maalintaa inuu iska hadhayo ehelkiisa
iyo adduunkiisii iyo asxaabtiisii iyo awooddii uu lahaa waxaa anfacaya iimaan wanaagsan acmaal saalixahoo uu soo diyaarsaday ilaahay baa wuxu uhi yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim waa maalinka aanu anfacaynin ubad iyo adduun maalun walaa banuun labadaasuu ilaahay soo qaaday waayo dadku labadaasay isku halleeyaan waxay isku halleeyaan dadkooda iyo duunyadooda maxaan dad leeyahay maxaan duunyo leeyahay maxaynu xoolo leennay maxaynu xoog leennay ayaa wax badan ay isku qiimeeyaan qoyska iyo qofka iyo ummadduba labadaa midna ma yaalla buu ilaahay yidhi waxaa anfacaya qalbun saliim qalbi caafimaad qaba oo gaalnimo ka caafimaad qaba oo shaki iyo shirki iyo nifaaq ka caafimaad qaba